soo dhawaada daawadayaal fiid wanaagsan qodobada xiisaha leh aad caawad halkan ku daawan doontaan kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciidamada geesiyaasha beesha ciise ayaa helay meedeedka 6 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka beelaha Samaroon dagaalkii ka dhacay banaanka tuulada Fardo haddaba waan ku hayaa meedeedkaasi waliba sidoo kale inta ay markaasi ay akaayeen waliba sidoo kale hubka noocyada kala duwanaa ay wateen dhorkii maalmood u dambeeyay oo gobolka Awdal iyo Salil ay naqatay meel ay meedadku waliba sidoo kale dhaawacyada la saaxiiba sidoo kale qodobada kale xiisaha leh halkan ku daawan doontaan waxaa kamid ah maamulka Somaliland ayaa qoys ka taagan xal u raadinta beelaha wadadega Awdal iyo Salil xilli ay halkaasi xaalad markaasi aan wanaagsaneen mar kale laga soo warinaya kadib markii deegaano dhowr ah ay isku farasaarayaan maleeshiyaadka beesha Samaroon iyo waliba sidoo kale geesiyaasha beesha Ciise Weyne yana waan ku hayaa faahfaahinteeda xilli ay hore u sheegeenba beesha Samaroon in aysan marnaba ogolaanaynin waanta iyo waliba sidoo kale maamulka Somaliland ay wadaan iyagoona arinkaasi ku tilmaamay markii iyaga laga adkaaday oo meelihii ugu badnaa lagala wareegayna ayay sheegeen in ay soo galayaan waanta sidoo kale qodobada xiisaha leh halkan caawaad ku daawan doontaan fiidnimada ahna waxaa kamid ah ciidamada beesha Ciise ayaa markan ballan qaaday in aysan weerari doonin maleeshiyaadka beesha Samaroon maadaama ay joogaan meeshii ugu wanaagsaneed ee ay iyagu u baahnaayeen aysan u baahneen markan inay weeraraan kaliya in iyaga duulaan lagu soo qaado ayna sheegeen maalintii duulaan lagu soo qaado in aysan dhici doonin in qof isagoo nool u laaban doono haddaba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan idin qarinaya ayaad halkan ku daawan doontaan soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanaalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horeysay fadlan kanaalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysid la garay siin share garay saaxiibada la wadaag qaybta hoose faaladan aragtidaada noogu rib daawada waxaan ka codsanayaa dhammaantiin inta qof ee muuqaalkan daawan doonto maanta ama muuqaalkan caawa daawan doontaba waxaan ka codsanayaa in aad subscribe yiraahdaan si aan u gaaro 5,000 oo subscribe wax yar oo kaliya ayaa igaaga dhiman 5,000 subscribe ka igaarsii adigana ka mid noqo saaxiibada cusub ee igaarsiin lahaa 5,000 subscribe mahsanidin hagaag aynu ku bilaaw ciidamada beesha Ciise ayaa markan helaya meedeedka 6 askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka beesha Samaroon oo lagu helay banaanka tuulada oo lagu magacaabo Fardo oo kamid ah tuulooyinkii sida dhawaan ama maalintii shalayba loogu wada dagaalamay haddii aad horay sheekada aad ugu ogeed sheedheer iyo meelo la mid ah Isamatar Yare hadda se xaaladdu waa isbedeshay oo waxaa markan la isku hayaa tuulada lagu magacaabo Fardo oo ay ciidamada maleeshiyaadka beesha Samaroon oo ay shalay duulaan ku soo qaadeen ayaana dhigta dhiig loogu daray loona adkaaday kadib markii ay isku dayeen in ay si xoog ay ku qabsadaan loogana awood sheegtay aan fiirino marka wararka naga soo gaaraya gobolka Awdal gaar ahaan deegaanada waa markaasi deegaanka Salil ayaana sheegaya in ciidamo ka tirsanaa beesha Ciise ay heleen meedadka 6 askari oo markaa la sheegay inay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka beesha Samaroon kuwaas oo lagu markaasi dilay dagaal ka dhacay nawaaxiga tuulada Fardo xiisada u dhaxaysa aan ku celiyo halkaas xiisadan u dhaxaysa labadan beelood oo wada dagaal waa markaasi wada dega gobolka ayaana maalmahan sii kordhisay iyadoona dagaalkan goosgooska ah ee ka dhacay deegaano dhowr ah wararka hordhacana ayaa tilmaamaya in khasaarooyin iyo kala duwan iyo waliba sidoo kale kuwa dhimasho isugu jiraba halkaasi ay ka jiraan inkastoo aanan weli si rasmi ah loo xaqiijin tirada rasmiga ah iyo guud ahaan inta markaasi la ogyahay balse laakiin ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa shalay meedad markaasi ay ku heleen goobihii maalin dhaweed lagu dagaalamay ee tuulada Fardo iyadoona 6 askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadkan halkaasi ay ka soo qaadeen iyagoona ay markaasi beesha Ciise ay sheegeen in ay ka mid ahaayeen ciidamadii shalay halkaasi soo weeraray ee beesha Samaroon askartan ayaa sidooda ay markaasi ay dagaalkii ugu jireen rasaasta ay goobtii uga dhacday ee ku dhaceen ayaana loogu dul tagay lagana soo aruuray hubkii ay wateen
iyo weliba sidoo kale saanadii ay hore u wateen oo ay rabeen inay kula dagaalamaan ciidamada geesiyaasha beesha ciise balse laakiin taa mid ka duwan ayaana loogu markaasi lagu sameeyey oo meedadkii ayay waxa ay sameeyeen ciidamada geesiyaasha beesha ciise goobtii ay dhinteen ayay godad uga faageen oo aynu ku aaseen iyagoona asxaankii ugu wanaagsan ay u sameeyey maadaama meedku uu yahay mid in la xurmeeyo ay tahay ciidamada geesiyaasha ayaana go-aankaasi qaatay goobihii ay ku geeriyoodeen ayayna ku aaseen ilaa iyo 6 askari oo ka tirsanaa ciidamada beesha Samaroon xaaladda gobolka Awdal iyo Salel ayaa faraha kasii baxaysa xilli maamulka Somaliland ay soo fargeliyeen ayna sheegeen in ay markaasi ay ka sameyn doonaan xabad joojin ogaasida iyo weliba sidoo kale nabadoonada ayayna u direen qof kasta beeshiisa halka beesha Samaroon oday askar dhalinyaro intaba ay sheegeen inaysan diyaar u ahayn in ay heshiis qaataan oo ay diyaar u yihiin in ay la dagaalamaan ciidamada beesha ciise xilli beesha ciise ay iyagu meelihii ugu waaweynaa Boorama ilaa iyo geeska gees iyaga ayaa haysto oo hadda meel ay u baahan yihiin inay qabsadaan ma jirto balse waxa ay sheegeenba inay kaga fariisan doonaan dagaalkaba ay iyagu ay noqon doonaan kuwa wax sugaya balse xaaladan hadda askartan shalay lagu dilay tuulada Farado ayaana markaa ka dhigaysta mid kale oo guuldaro qaraar dhadhansiinayso maleeshiyada beesha Samaroon waana kuwa aanan ku wanaagsaneyn dagaalka balse laakiin afka iyo weliba sidoo kale marka loo fiiriyo qaabkay u hadlayaan waxaad moodaa in ay casharo dhigayaan balse laakiin iyaga ayaa casharo loo dhigaya dhanka kalena haddii aan fiiriyona maamulka Somaliland ayaana markaasi quus ka taagan xiisada beelaha markaasi ku wada dagaalamaya gobolka Awdal iyo Salel iyagoona taag ama markaasi maare ay u heli waayeen maamulka Somaliland oo sheegeen inay isku dayo ay sameynayaan sidii ay markaasi ku dhaxdhaxaadin lahaayeen beelahan markaasi dirartu ay ka dhaxayso maamulka Somaliland ayaa horay arinkan uga guuldareystay kadib markii uu sheegay in arinkan si dhaba u galayo ayaa beesha ciise u aragtay in ay iyagu ay dhanka markaasi beesha ciise waa markaasi beesha Samaroon u janjeeraan weliba maamulka askar waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland iyo saraakiil kaleba waxa la sheegay in beesha Samaroon ay qoodanayeen hubka noocyadiisa kala duwan ay iyagu farta ka saarayeen balse xaaladahaasi oo isbiirsada awgeed beesha ciise ayaa hore uga gacan saartay heshiis ay rabeen Somaliland balse markan beesha ciise ayaa diyaar u noqotay iyagoona wax walbana ay hadda u arkaan kuwa dhaxdhaxaad loo geliyay balse ciidamadii beesha Samaroon ayaa markan iyana bilaabeenba in ay durbaba ay yiraahdaan beesha ciise ayay la jiraan maamulka Somaliland marka loo fiiriyana maamulka Somaliland waxa bixiga beesha Samaroon halka beesha ciise dhanka Djibouti ay xigaan Djibouti wali kama aysan soo biirin bixita dagaalkan iyadoona warar qaar ay sheegaan in diyaarada ay leeyihiin mararka qaar lagu arko hawada maadaama ciidamada maamulka Somaliland looga baqo in dagaalkaas uu soo galo haddana ma aysan dhicinta oo xaaladii ugu dambeeyay waxa ay noqdeenba mid marka Samaroon ay sheegtaan in Somaliland ay ka xigsanayso dhanka beesha ciise aan fiirino marka dhanka kale haddii aan fiirina maamulka Somaliland ayaa la sheegayaa inuu ku howlan yahay dadaalada lagu doonayo in lagu dejiyo xaaladda iyagoona wada hadallo markaasi la leh odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka labada dhinacba si kastaba ha ahaatee ilaa hadda wax markaasi wax muuqdo oo xal degdega la gaaray ma jirto balse laakiin odayaasha dhaqanka beesha ciise horay ayay baraha bulshada u yimaadeen iyagoona cadeeyeen in ay yihiin kuwa u diyaarsan in nabadda iyo weliba sidoo kale xasiloonida gobolka Awdal iyo Salelba ay diyaar u yihiin inay qayb weyn ay ka qaataan maamulka Guban State ayay beesha ciise ay doonaysaa inay halkaasi ay ka dhisto iyadoona beesha Samaroon ay iyaguba ay ka masiirsan yihiin iyaguna ay markaasi hadda ay rabaan in ay iyaguna markaasi ay sameystaan balse laakiin ujeedka sidaasi ma ahano beesha ciise waxa ay doonayaan laba shay inay markaasi hirgeliyaan kow waa in la hirgeliyaa maamulka Guban State si lamid ah buugga heer ciisana in si waadix ah loo markaasi soo bandhigo ujeedada ugu weyn ayna tahay dagaalkii ugu markaas saldhig ugu weynba halka uu ka bilowday uu ahaa hakinta waxa la sheegay in beesha markaasi waa markaasi aan raadi markii la hakiyay buugga heer ciise marka loo fiiriyo
dhanka kalena haddii aan fiiriyo qodobkeena ugu dambeeyana beesha ciise oo markan ballan qaaday inaysan weerari doonin maleeshiyaadka samaroon oo iyaga markaasi sheegeen in beesha ciise ay ku gardaroonayaan waxyaabahaasi idin ayay soo gabagabeeyeen dhanka kale beesha ciise ayaa la sheegayaa in ay si cad u muujisay mowqifkeeda iyadoona ay ballan qaaday in aysan markaasi ka laaban doonin dagaalka haddii ay sii socdaan weerarada kaga imaanaya maleeshiyaadka beesha samaroon dadka deegaanka iyo ayaana markaasi cabsi xoogan soo ay muujinayaan xilli xaaladda markaasi faraha ay kasii baxayso taasi oo keenayso in xaaladda marba marka kasii dambeyso ay kasii darayso walow aysan beelahan halkaasi ku wada dagaalamo aysan isku cusbeen oo iyaga mar walba ay halkaasi ku wada dagaalamayaan guud ahaan halkaas ayaan jeclahay daawadayaal inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeenii weliba sidoo kale wararkii degdeg ahaa kuwooda ugu dambeeyey ee aan halkan idinkugu soo gudbinayay daawaday haddii dalkan nala soo gaartay waxaa tahay qof qalbi wanaagsan waxaa sina xasle kaaga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe garaysid muuqaalkan laa garay siina share garay saaxiibadaada la wadaag ka mid noqo saaxiibada cusub ee gaarsiin lahaa 5,000 subscribe-ka ilaa iyo 10,000 aan doonayno inaan higsano oo ku mahadsantiin daawashada muuqaalka mahadsantiin